بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبتو أي تاريخ تهي كوي لاتنكا بشا جون سنة كاللوضة كون يلواتن يشنطة وحان ربعين أنوكو بشارة يوم مدى صوماليات شرفت له إن عيدن كحوق الدلك صوماليات وكاشانا يا عيد مدى أيو صوم أي لو ريغين ديغان كسبيد يعانو له وآه ديغان muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed sidoo kalena istiraatiiji u ahaa cadawga inay haystaan si ay dadka uga dhibaateeyaan howlgalka deegaankan lagu qabtay oo socday muddo usbuuc ah waxaa lagu magacaabaa duufaanta aamusan waa howlgal aan ugu talagalnay in deegaanada ay haystaan khawaarijta aan dhammaan kaga xoreyno oo dhibaatadooda aan kaga dulqaadno ummadda Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad uga xumahay dhibaatada ay khawaarijtu u geysteen intii ay socotay howlgalkan uu socday ummadda Soomaaliyeed oo ay koow ka tahay in buundadii ay isu marayeen dadka shacabka Soomaaliyeed ahayd ee ay hantidooda iyo xoolahooda iyo marinka u ahayd ay ka burburiyeen waxaana sharaf darri iyo ceeb iyo fulaynimo ah in nin sheeganaya inuu awood iyo ciidan haysto oo uu la dagaalamayo dawladdii iyo shacabka Soomaaliyeed uu awoodi waayo inuu ciidanka isaga difaaco waxa uu haysto oo uu magansado inuu buundooyinka ka dudumiyo taasoo ku tusinaysa dhibaatada khawaarijtu ay mar walba ku hayaan ummadda Soomaaliyeed oo ah in kaabayaasha nolosha ay ka burburiyaan waxaad ogtihiin horaan in haldoorka ummadda Soomaaliyeed ay dhameeyeen waxaad ogtihiin in aqoonyahankii ummadda Soomaaliyeed ay dhameeyeen waxaad ogtihiin in aysan u ogolayn dalkan dad nool oo sharaf leh oo nabad ku nool iyo dawladdoodii oo si xor ah u nool oo u shaqaysanay sidaa daraaddeed waxaan leenahay laga bilaabo maanta insha Allah waxaa bilaabanaya oo sii socon doona howlgalladaas aan ugu talagalnay in cadowga aan ummadda kaga qabanno sidoo kale isla maanta howlgal kale oo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaadeen oo ay ka qaadeen deegaanka Bakool gaar ahaan meesha lagu magacaabo Duchi iyadana wuxuu ku soo dhamaaday si guul ah halkaasna cadow badan oo khawaarij ah ayaa lagu naafeeyay dad badan waa looga dilay xeradii iyo halkii ay ku sugnaayeen waa laga qabtay waxaana u rajaynaynaa dhammaan geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed ee hawsha fuliyay guul iyaga oo goobahooda jooga si nabadana ku jooga cidnana ayna waxba ka noqon waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa insha Allah waxaa badnayd in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmahan dambe daleecayn badan iyo dhinacyo badan wax looga sheegay laakiin waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadkoo dhan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu yahay udub dhaxaad in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu yahay waxa maanta dhulka aad aragteen ee balaciisu mudug ka soo bilowda ilaa iyo jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gada iyo meel walba cadawga hor fadhiya inay yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee habeen iyo maalin u fadhiya difaaca dadkooda iyo dalkooda waxaan leeyahay insha Allah waxa hadda bilowday waa shaqo socon doonta insha Allah muddo dheer waxaan leeyahay sidoo kale in khawaarijtu ay waqtigeedu u gabaabsi yahay waxaan ugu baaqaynaa inta aad aragteen dadka dhibaatada godadka ay ku nool yihiin aad aragteen ee idiin muuqda wax ku khasbaya ma jiro waxaan leenahay ummaddiina Soomaaliyeed u soo noqda dadkiina iyo dalkiina u soo noqda islaamnimadkiina u soo noqda dadkiina u imaada danihiina raacda cid idinku khasbaysa inaad godkaas sidii aboor ku noolaataan oo ummadda ka dhibaataysaan oo halkaa ku jirtaan ma jirto waa la isog yahay diinna uma socotaan dalna uma socotaan waxaad u socotaan waa in shareecada Ilaahay aad ka been abuurataan waa in ummadda aad dhibaato habeen iyo maalin dhiigga qofka muslimka ah oo aad ogtihiin dambigiisa iyo dhibaatada uu leeyahay aad maalin kasta daadisaan waxaan leeyahay marka waqtigu meel fiican buu marayaa inaad ku tala gashaan intuuna waqtigu dhammaan insha Allah inaad ka waantowdaan waxaad ummadda Soomaaliyeed ku haysaan dhibaato dibna uga soo noqotaan
waxaan u rajaynayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed guul howlgalladan oo ugu horeeya howlgalkan aan hadda ka hadlayno ee ah howlgalka duufaanta aamusan la yiraahdo uu sii socon doonaa waxaan bogaadinayaa oon aad iyo aad u dhiirigelinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Hiiraan iyo macawisleyda gobolka Hiiraan oo runtii muddo hadda aan yarayn cadowga cashiro badan ugu dhigay deegaankaas ilaa haddana ay awoodi la yihiin cadowgu in deegaankaas ay ugu noolaadaan si xor ah waxaan leeyahay guul baad ku fadhidaan guuleysta macawisleyda reer Hiiraan iyo ciidanka xoogga dalka